Abu Fallah. Ninkan jinsiyadiisa waxaa si toos ah u weydiiyay ama si toos u arkay oo nadartu bilcayn dhahay sida isaguba uu sheegay walaalkeen Cumar Inshaar in jinsiyadiisu ay tahay Soomaali. maanta ka bilaawato ma lagu murmi doono Xasan Suleymaan waxa uu yahay ama jinsiyadiisa maanta ka bilaawato ma lagu murmi doono. waxaan ku hayaa marqaati maragmo doonta ah kaasoo ilaa iyo hadda nool oo inoo cadeeyay jinsiyadiisa waxa uu yahay Xasan Suleymaan ama ninkan lagu magacaabo Abu Fallah ama carabta wareertay. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta magaciigu waa rijaalay madaxweynaha YouTube-ka Xasan Caadle. haddaba haddii ay tahay markii kugu horreysay soo booqato janaalka waxaan ka codsanaa janaalka in la gareyso sidoo kale intood muuqaalkana aad sii share gareyso dadkan dhalinyarada ah ee ku dhashay wadamada Yurub. waxaan dhahnaa ciyaalsay wallahi laakiin kan maxaan leenahay ciyaal carab wallahi ayaan leenahay. muxuu yahay muuqaalkan marqaatida oo maragma doontada oo ilaahi hadda nool kumanaan ruuxna ay ku xiran yihiin bartiisa YouTube-ka kaasoo inoo cadeeyay in Abu Fallah uu yahay Soomaali jinsiyadiisuna ay tahay Soomaali aan shaki lahayn. okay dhawaanahanba waxaa la isku haystay jinsiyadda wiilkan yar annagoo aan ogsoonahay waxyaabaha uu sameeyay guulaha la yaabka leh oo uu soo hooyay dhammaan muslimiinta sidoo kale intoodna qaasiyan dadka Soomaaliyeed walow jinsiyadiisa lagu muransan yahay laakiin shaki la'aan ninkan waxa uu yahay. waxaan kugu wadaagi doonaa muuqaalkan qaybo kamid ah adigoo indhahaaga ku daawan doontid cadeyn waafi ah oo aan idinkaga hayo wiilkan jinsiyadiisa dhabta ah. waxa uu ku dhashay wadamadan carabta ah sidoo kale intoodna waxa uu dugsigiisa waxbarasho iskuulkiisa quraankiisa uu ku dhameeyay wadamadan carabta ah laakiin ma uusan gelin wax jaamacada sababtuna wax kala ma ahayn. waxay ahayd familkiisa oo aad u danyaraa ayaa ku kaliftay inuu iska joojiyo waxbarashadii ama waxbarashadii loo waayo wax lagu dabaro. maxaa yeelay mar walba oo aad waxbarasho aadaysid waxaad u baahan tahay fiiga cid ku damaanad qaada in ay ka dhiibto fiiga jaamacadda ama fiiga iskuulkaas. intaba waa awoodi waaye laakiin wiilkan waxa uu markii dambe go'aansaday in uu YouTube-ka waqtigiisa ku lumiyo sida isagaba uu sheegay bartan YouTube-ka waxa uu u furtay inuu waqtigiisa ku lumiyo laakiin ma uusan u firin inuu lacag ka sameeyo ama waxaas inuu ka sameeyo laakiin al-ultimo waxay isku bedeshay in dhaqaale oo weyn oo familkaas oo dhan ay wada biishaan. haddaba maxaa igu kalifay inaan hadda aan soo qaato? okay waxaa jiraan wadamo badan oo isku dagaalaya dhalashadiisa inay sheegtaan laakiin hubaashii waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalkan hadda aan soo dhigi doono halkan ama halkan. waxaa waraysi la yeeshay walaalkeen Cumar Inshaar ama janaalka ogaansho muuqaalkan ma ogi waqtiga la qaaday laakiin waxaan ka soo helay TikTok-ga anigoo iska wareegay ayaan soo helay sidaa daraadeed xogtii waan sii baari. haddaba maxay ku wada hadleen maxaase wiilkan ka dhigay ama loogu muransan yahay dhalashadiisa ama jinsiyadiisa walow isagu uu qariyo haddana uu ballan qaaday inuu sheegi doono markii uu gaaro 51 milyan. haatan ku dhawaad waxa uu istaa 30 milyan iyo meelahaas haddii aysan ka badnaynba laakiin ninkan jinsiyadiisa waxaa si toos ah u weydiiyay ama si toos u arkay oo nadartu bilcayn dhahay sida isaguba uu sheegay walaalkeen Cumar Inshaar in jinsiyadiisu ay tahay Soomaali. muuqaalkan aynu isla daawano ilaa iyo dhamaadka. waxaan ka codsanaynaa inaad adigana faalladaada quruxda badan aad inoogu reebtid qaybta hoose. okay inoo bilow muuqaalka. maalin dhow waddan ka mid ah wadamada khaliijka waxaan ku kulanay wiil Soomaali ah ku dhashay khaliijka Xasan Suleymaan. طبعا Abu Fallah dad badan ayaa yaqaan Soomaali badan ayaa taqaan xitaa waan qofka ugu badan ee isbuucan laga hadlayo. kadib markaan arkay kaarka aqoonsigiisa inuu Soomaali yahay ayaan weydiiyay saatay walaal Soomaali soomateed. wuxuu igu jawaabay waxa uu arkay kaarka jinsiyadiisa meesha uu ka soo jeedo kadib waxa uu kula hadlay Soomaali. maxaa dhici doona marka? ليش أخويا أنا صومالي لكن ما أقدر أتكلم ولا كلمة صومالية. ها صومالي أيانه لكن كلمة صومالي ما قانو أيو إيقو جوابي أو أف عربية. waxaan ku qasbanaanay inaan carabi ku wada hadalna annagoo Soomaali labadeenaba ka waran carruurtu dhali doona wiilka sidee noqon doonaan. waxa ka sii daran carruurtiisa waxay sii dhali doonaan haddii la nool yahay. waa xaqiiq
والله هذا الكان محايا لي قفكي وإسقيهاي ونعتراقسن يهاي إنه يهاي صومالي هادنا وسن كهذا كنن واد أركتين أبو فلاح أو كهذا صومالي سيدا حد بقى أتكأر كيسان مقال كيسا بل داو قابك أو هذا ليه صومالي صوماليا وريا وانكو تعاليا وريا والله وحدري ميسا إن وسن وليجس يليس بقى وسن كهذلين maxaa yeelay qofka ku hadlo luqadda Soomaaliga iyo qofka aan ku hadlin ba labadaba waa la kala garanayaa adigan daawanay muuqaalka waa kala ogaanaysaa laakiin Abu Falah waa jinsiyadiisu waa Soomaali dadkan dhahaya marka wiilkan meeshaas u dhashay haddaba hadii uu shaki kaaga jiray waxa ku cadeynaya muuqaalkan sidoo kale intoodna cadeyn waafiya waa haysataa wiilkan inuu yahay Soomaali marka aynu ka dayno marka jinsiyada goonida ee aan u yeelayno ama hebel waay ama shakiga waa inaan ka baabiinaa intan ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalka haddaba haddii ay tahay markii kugu horeysa soo boqotay janaalka waxaan kaa codsanaa janaalka inaan like gelisid sidoo kaleeto muuqaalka aad subscribe gelisid waxaan ku rajeynayaa horumar iyo baraare peace